وقدر لما دقيقة تاس أو شعب كل قن ديان كصومالي وجود عينيان سيدو قلنا يقوم هاد عينيان إذا بدأ حوق كاركة دولة الديان كصومالي كوباس وحدود الديان كصومالي ولو ذا كونفور قلبات صوماليا كيقصد بشيء قاعد أرجع سرعة على الشباب شعب كل قن مقالة الجيجا ويدو هيد ماله قوين ذات مسيدات كيس وصل بحين إسلام مركزنا قدر لما دقيقة تاجني يدعي سيدو قلنا هاد عينت سوقرين ayaan weydiiyay bal sida ay u arkaan iyo sidoo kale ka soo qaybgalka barnaamijkan mid lagu duceynayo ciidanka xooga gaarka deegaanka Soomaalida looguna mahad celinayo caruur iyo ciyool gab iyo waayeel si sharaf leh ayaan u garab taaganahay heliyo amaana ummadda Soomaaliyeed ee cudurkan dilaaga ee al-shabaab u ragaadiyay waxaan u sheegaynaa oo ugu dardaarmaynaa sida ummadda dawladda deegaanka ku nool ay garab qaadatay halganka aan ku soo afjarayna maleeshiyadka al-shabaab inay nagu dadaan iska kaashadaan isgarab taagay baan mataqaan isgalin diraya waxaan leeyahay ciidanka gaarka ah geesiyaasha iyo dhammaan bulshada Soomaalida kala bixina isku duubnaada dhammaan cadawga ay soo galay ee aqoonsash iyo wixii kale mataqaan gardarraha gudaha iyo dibadda naga tabaadaba aan isku duubnaano aan isku difaacno dhalinyarada ma ka difnaano magaalada Jigjiga waxaan maanta soo baxay banaanbax soo baxay inaan u maanaqa laba daqiiqo u maanaqa ciidanka dalka guudka Nigers waxaan leeyahay marban holaban على جوش كان مر بعود عينه إن جوش كان مر بحالي إذا كيني بس إن أنا إذا كي جار كاها أنا ومر والباب هي اللي هو بلقرب تاجن ودي أدر كيسين با إن مر والباب وحول بلقرب قال حتى أنا وحن wax walbo nafteeda aan yaani ka soo gaayo oo nuhreeya saakana waxa ugu yar oo imday wax kale oo ma sheeg nuuciise waxa kaliya oo naga imday oo bajaaj u soo raacay intaas oo kiiloomitir soo socday waa inaan 2 daqiiqo oo kaliya oo waqtigeeda kamid aan ku dhawaad maasan TV police inta in ka badanna way naga mudan yihiin macnaha ilaahay garabkiin ha galo shuftada awjka ee macnaha diintu isku qalibtay wax walba muxuu ahaa khaladka ka faahsan waxayna galanayn bilaa ujeedada dadka kula dagaalamaysa macnaha difaaca aad ummadda ka difaacdeen waanu idinku garab taaganahay dhiig iyo maal iyo biyo iyo cuntaba waanu idinku garab taaganahay dalka macnaha ilaaliya xuduudda iyo shuftada diinta ka been sheegaysa ka ilaaliya ayaan wassalaamu calaykum al-shabaab ayaa xuduudda deegaanka Soomaalida u la wadaaga koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay weerar kaga soo qaaday ciidanka xooga gaarka ee ku sugan gobolada ku teedsan koonfur galbeed Soomaaliya. Sida heersan telefishinka CBA Jigjiga